kusoo dhawow janalka Big Deer News. Fadlan haddaad ku cusub tahay janalkeena saar subscribe, like and share. Gaarsii asxaabtaada kana faa'iidayso adiga dadkana u faa'iiday. Fadlan gaarsii walaalka aan ogeyn kanaalka. Dadka Turkida ah ayaa mar kale ka yaabsaday dunida. Dadka Turkida ah ayaa tusay in ay dunidu horumarsan yihiin. Dadka Turkida ayaa mar kale tusay isjaceelka, wanaagga, naxariista dhexdooda ka muuqata. Dadka Turkida ah ayaa waxay sameynayaan dadka danyarta ah ee dalkooda ku nool maadaama xaalad kala guur ah dalku uu ku jiro. Maadaama magaalooyinka waaweyn qaarkood lagu soo rogay bandow sida wadamada Yurub dhammaan ay ka jirto maanta. Dadka Turkida waxay sameynayaan hay'adda bisha cas ee dalka Turkiga raashin ayay kartooman ku gurayaan. Raashinkaas waxay u qaybinayaan dadka danyarta ah ee ku nool xaafadaha faqriga. Sida og tahay dal walba wuxuu leeyahay dad danyar ah. Dal walba dadkiisu ma noqon karaan qani ama taajiriin. Si walba dalku dhaqaale u leeyahay. Dalka Turkiga wuxuu ka mid yahay 20 wadan ee adduunka ugu dhaqaalaha badan. Saas ay tahay waxaa ku nool malaayiin fuqara ah oo aan waxba haysanin, xamaaliyiin ah, qutulyoonkooda la diriro. Sidaan ogsoonahay Soomaaliya waxaa ka jira dad fuqara ah iyo dad meel dhexaad ah. Inkastoo Soomaaliya aan dhihi karin maanta dad tujaar ah ayaa jira. Sababtoo ah ma lihiin dad taajiriin ah. Waa dad fara ku tirsa boqolkiiba 300 hal ruux ayaa laga yaabaa inuu noqdo qof dhaqaale haysta. Dhaqaalihiisu xataa ayna gaarayn 5 milyan ama 10 milyan. Marka dadka Turkiga hooyooyinka masaakiinta ah, aabiyoonka masaakiinka ah iyo dadka fuqarada ah ay kartooman raashin inay ku guraan u geynayaan. Marka annaga haddii aynu Soomaali nahay xaaladaas oo kale Ilaahay naguma keeno. Laakiin haddii ay dhacdo xaaladaas oo kale oo dalweynaha Soomaaliya lagu soo rogo bandow, miyaynu sameyn karnaa sida ay sameynayaan walaalaheen Turki ay isu gargaarayaan, ay isu naxariisanayaan? Ma laga yaabaa in ay Soomaalidu sidaas oo kale ay sameyso? Mise sidii caadada ahayd Soomaaliya maadaama dad ganacsato ah iyo dad dowladdu ay dhaqaale ku bixinayso dadka in la caawiyo dadka ay musuqmaasuqaan. Marka Turkiga u jeedaan waxaa lagu ridayaa qudaar ay nooc, raashin ay nooc. Ma aha in qofka hal loo bariis ah farta laga saarayo. Raashin walba oo qudaariga ah kis ayaa qofka laga siinayaa. Kartoon ayaa lagu ridayaa 2 kartoon, 3 kartoon, 5 kartoon. Qof walba intee is dhahan kan baahidiisa waa intaas ayaa loo geynayaa xaafadda. Marka sida u jeedaan dadku Turkida ah waa dadka isku jecel. Dadku is jecel ayay ka mid yihiin, is caawiya, sharaftooda iyo karaamadooda ilaashada. Marka haddana waxaan ku noolahay dalka Jarmalka saan oo kale dalka Jarmalka ma jirto. Waa laga yaabaa in dadka qaar shacabka magaalooyinka qaarkood in raashin ku soo shubaan, raashin yar ama rooti ama tufaax wax la mid ah in ay soo suraan wadooyinka si ay dadka homeless-ka aan guryaha lahayn ay u qaataan. Waayo dalka Jarmalka waxaa ku nool 3 milyan oo guri la'aan ah. 3 milyan wadooyinka ay seexdaan. Marka waa laga yaabaa saas oo kale inay sameeyaan dadka Jarmalka ah. Laakiin sidan Turkida oo kale dadka masaakiinta ah wax ma siiyaan. Waa dad dhaqaalahooda qof walba dhaqaalihiisa ayuu ilaashanayaa. Qof walba dantiisa ayuu garanayaa. Qof walba jeebkiisa ayuu ku tashanayaa. Haddii aad banaankaas baahi ugu dhimanayso laga yaabo in 1 shilin cid ku siisa aad aragtid. Marka maanta annaga maadaama aan nahay Soomaali waxaa wanaagsan in aan ka barano dadka Turkida ah sida ay isu gargaarayaan, sida ay isu jecel yihiin, sida ay dalkooda u dhisanayaan, sida dalkooda u horumarsanayaan. Turkiga 10 sano ka hor wuxuu ka mid yahay dalalka ugu hooseeya dhaqaalihiisa Yurub. Waxaan filayaa inuu ku jiro kaalinta 83. Maanta wuxuu ka mid yahay 20 wadan ee adduunka dhaqaalaha badan. Soomaaliya awalkeedii hore dhaqaalaheeda ma aynu sareynin. Saas ay tahay maanta waxay ka mid tahay 20 wadan ee ugu dhaqaalaha hooseeya dunida. Dadka Turkidana waa 20 wadan ee adduunka ugu dhaqaalaha badan. Marka dadkaasi kuma gaareen jiif iyo qabyaalad, waxay ku gaareen karti iyo wax wada qabsi. Sidaas oo kale annagana waxaa loo baahan yahay maadaama aynu nahay dad Soomaali ah
inaan anagana dalkeena iyo dadkeenu aan gargaarno, aan is caawino, dadkeena liito, keena baahan, keena dhagan inuu wax siiyo. Marka adoo mahadsan haddaad ka heshay videogan iyo sida isu gargaarayaan Turkida, waa inaad faafisaa videogan.